Salaamullaahi calaykum daawada ama dhageyste soo dhawow meel walba aad joogtaan fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe share channelkan Xasan Taariikh furo gambalaalka si aad ula socoto wax walba aynu soo gelino maanta barnaamijkan waxaa ku soo qaadan doonaa shirkadda caanka ah ee Microsoft. shirkadda Microsoft waa shirkad teknoolojiyadeed oo laga leeyahay dalka Mareykanka xarunteedu tahay Washington. Shirkadda Microsoft waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 1974 waxaana aasaasay Paul Allen iyo Bill Gates. Waxaa laga diiwaan geliyay New Mexico sanadkii markuu ahaa 1974. Allen iyo Bill Gates waxa ay ka boodeen falsafadooda dugsiga sare si ay ugu noolaadaan qol kombiyuutar oo ku yaala iskuulkooda. ugu dambeyntii waxay jabsadeen kombiyuutar yaala iskuulkooda kadibna waa la qabtay, laakiin halkii laga ceerin lahaa waxaa la siiyay waqti aanan xadidnayn ay ku casriyeen kombiyuutarkii yaala iskuulkooda. sanadkii 1973 Bill Gates waxa uu ka tagay Seattle si uu ugu xaadiro jaamacadda Harvard. Bill Gates weligiis kama harin isagoo inta badan waqtigiisa ku qaatay xarunta kombiyuutarada ee Harvard, halkaas uu ka sii waday in uu sii wanaajiyo xirfadiisa programming. Paul Allen isla markiiba wuxuu soo guuray Boston sidoo kale isagoo ku cadaadinaya Bill Gates in uu ka tago Harvard si ay si buuxda ugu wada shaqeeyaan mashruucyadooda. Bishii Janaayo 1975 Paul Allen wuxuu akhriyay maqaal journal oo electronic oo caan ah oo ku saabsan Altair 8800 microcomputer. waxa uu tusay Bill Gates. Bill Gates wuxuu ugu yeeray MITS sameeyaashii Altair. Bill Gates waxa uu soo bandhigay adeegyadiisa Allen in ay qoraan nooc ka mid ah programmada basic oo loogu talagalay Altair. 8 usbuuc kadib Paul Allen iyo Bill Gates waxay soo bandhigeen programkoodii MITS kuwaas oo ogolaaday in ay qaybiyaan suuqyada ugu waaweyn ee Mareykanka, halkaas oo ugu magac dareen Altair Basic. heshiiskii Altair Basic waxa uu dhiirigeliyay Bill Gates iyo Paul Allen in ay sameeyaan shirkad software oo ay ugu magac dareen shirkadda Microsoft sanadkii 1974. Bill Gates ayaa ah maamulihii ugu horeeyay ee shirkadooda cusub ee Microsoft. bishii Agoosto 1977 shirkaddu waxay furatay xafiiskeeda ugu horeeyay oo caalami ah oo ku yaala dalka Japan laguna magacaabo ASCII. Microsoft wax soo saarkeeda ugu horeeyay ee howlgalka si rasmi ah loo sii daayay waxa uu ahaa nooca loo yaqaan Unix oo la sii daayay 1980. nidaamkii ugu horeeyay ee guul gaaray ee Microsoft Office waxa uu ahaa MS-DOS ama Microsoft Disk Operating System. sanadkii 1983 hanashadii Microsoft Windows waxa uu leeyahay istiraatiijiyad isticmaal garaaf cusub jawi ku haboon kombiyuutarada IBM. sanadkii 1986 shirkadda ayaa dadweynaha u noqotay mid aynan ka maarmin. Bill Gates waxa uu noqday bilyaneer 31 jir ah. Agoosto 1995 Microsoft waxa ay sii deysay Windows 95 oo ay ku jirtay teknoolojiyadda ku xirnaanshaha internetka. sanadkii 2001 Microsoft waxa ay soo saartay cutubkeeda ugu horeeyay ee ciyaar gacmeedka oo loo yaqaan Xbox oo ay tartan adag kala kulmaysay shirkadda Sony. ugu dambeyntii Microsoft waxay joojisay Xbox iyadoo doorbidayay inay soo saarto noocyo dambe. 25 Oktoobar 2001 shirkadda Microsoft ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay Windows XP. bishii Janaayo 2007 shirkadda Microsoft waxay sii deysay Windows Vista iyo Office 2007. 27 Febraayo 2008 shirkadda Microsoft ayaa sii deysay Windows Server 2008. bishii Oktoobar 2009 Microsoft ayaa sii deysay Windows 7. September 4, 2012 shirkadda Microsoft waxay sii deysay Server 2002. 26 Oktoobar 2012 Microsoft ayaa sii deysay Windows 8. 17 Oktoobar 2013
Microsoft ayaa sii deysay Windows 8.1 July 29 2015. Microsoft ayaa sii deysay Windows